بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كليب كان هلا سي قد بيه هلا سي شارك رايو. الله يذن بركايو بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ولا لها دمان مسلمين تا انت إلهي درتي اسكتش علبة هلا سود وادا أيان ذلاي هاي سود وادا إن شاء الله تعالى هلا سود وادو خير كان هلا سي شارك رايو هلا سي قد بيه. حقيقة أرنتي أحيد ننكي أهل فتنة أها ننكي أهل اللوضيق أها ننكي خنيسك أها أرنتي سوحاد أكتهين إني سي بضطي وحاد أكتهين ننكي خنيسك أها إن مالمهم براها السوشيال ميديا xoog iyo muruq uu ku haysto taasad ogtiin ayuha liqo waxaynu maanta ka hadlaynaa ama iska baraarujinaynaa ninkaasi fitanta uu wado ninkaas cadowga diinta ku ah ninkaas ummadda Soomaaliyeed cadowga ku ah in aynu iska qabanno oo aynu ka hadalno oo wixii karaankeen ah aynu ka niraahno. ولذلك رسولك وحير عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا قف إذن كمد هدين ده ساس او منكر كو أركو قعنتها كزولي مركا كوبات انتاس هديو أودي وايو قعنته أودي وايو هكزوليو عربك كسوليو عربك هديو أوذي وايو قلبك هكنعو إنكم ما أنت قعنتي ما أوذنو وينو نئس أغنح لكن ما أنت محينو أوذنا وحينو أوذنا إن أينو كهذلنو هدي أينو كهذلنو أو ميل أغسو وذهر جيسنو إلهي سبحانه وتعالى مرخاتب إنغيه إلهي سبحانه وتعالى يعني وحو أركيا إن أينو نهي ضد كحن أرنكن إلهي سبحانه وتعالى وحو أركيا إن أينن رالك أهين قف كاسي في تنتي وذين إلهي إساقو كوكوبيا. أيها الأخوة حد أكتهين مالمهن إلا ضرات إلا ويغن عنده إلا ويغن أودن waxa social media ka socda xaqiiqatan wax lagu tilmaamo aan la sheegi karin weeyaan. waxa social media isbuucan ka socday intii adduunka aan arkayay fuxsh intii adduunka aan arkayay dhibaato social media la soo galiyo akhlaaq xumo social media la soo galiyo وأخلاق حمدي أبو أبد أن أركو إلا قفا إنت هاسو سوشيال ميديا استعمالي أبد أخلاق حمدي أبو حميد إيه أدون كإفك إنت لصارنا أبو حميد با أسبوع عن سوشيال ميديا كصعودة وحا إسكوكي قبان لا إيضو سيدا أي تهي إن هدنا علماء أفك أي كحدين أو أي كآمسان waxaad ogtiin walaalayaal ninkaasi luudiga ah ee ummadii Soomaaliyeed ee cisiga lahayd ee sharafta lahayd ee karaamada lahayd ee muslimka ahayd meel kaga dhacay waxaad ogtiin fitantiisu maanta heerkay marayso. awal hal clip buu iska soo duubay markii ku xigtay laba clip buu iska soo duubay hadeerna tuufaas buu ka dhigay. waxaan iri niyada waxaan iska weydiiyay waruuxu miyuusan daalaynba min subax ilaa iyo hadeer life buu ku jiraa
markaas wuxuu ka sheekeenayaa akhlaaq xumadii iyo luudigii iyo zinadii iyo akhlaaq xumadan uu ka sheekeenayaaba ka sii daran war waxaan miyuusan xiiqaynba marka yani dee arrinta noocan ah inaynu fiirsanno oo aynu ku qosolno oo aynu dhaq iraahno oo aynu kaa niraahno oo aynu dan iyo muraad ka gelin dee suuragal maaha macquul maaha caqlan wa sharcan xalay toole waan la yaabay yacni waxa uu ku sheekeenayo shakhsigaas bini aadanka ah ilaahay baa abuuraye waxa uu ku sheekeenayo ilaahay indhaha yacni kuma saari karaba aniga dadka ninkaas waxaa igala daran inakoo raalliba ku ah inakoo yacni iskaba caadi ah dareen bilaa dareennimo war yaareen war maxaa xala ilan gurigeennibu biyo inoogu galeene godkeennibu biyo inoogu galeene dee haddaba soomaaliya is-aasa war aynu is-aasan wallaahi dhimashadaa sida dhaanta oo bilaahi dhimashadaa sida dhaanta oo tallaahi dhimashadaa sida dhaanta in dhalinyarteennii soomaaliyeed iyo dadkeennii soomaaliyeed ay maanta iska fiirsanayaan wakhtiga iskaga mashquulinayaan ninkaas fitanta iyo akhlaaq xumada iyo zinada u wado dhimashadaa inoo dhaanta war inta adduunkan cadaab la inoogu keeni lahaa oo samada laynagaga soo daadin lahaa dhagaxaan iyo dab iyo naar war dee aynu is-aasan saasa inoo khayr badan intuu dhulgarir inagu dhici lahaa ama ilaahay daacuun ilan daacuunka ilaahay wuu awoodaaye ilaahay hal mar ilan wuu awooda inu daacuun inagu sallidee war intii taasi inagu dhici lahayd hawshanna wax ka qaban weynaye aynu is-aasan war waxaan idinku idhi arrintan hal qodob baa lagu istaajin karaa idinkoo ka hadla hal qof oo ka hadlay anu ma arkinba war maad ka hadashaan war wallaahi anigu waxaan aaminsanahay ninkaas fitanta uu wadaa waxayba ku istaagaysaa hal mar oo si xun aad uga hadashaan hal mar oo si caro leh aad uga hadashaan bayba ku istaagaysaaba ninkan haddaba arrinta uu wada aan idinka sheekeeyo arrinta uu ninkani wadaa aan idinka sheekeeyo ilaan waxaa la rabaa soomaaliya caqli fog inaynu yeelanno waxaa loo baahan yahay aragti fog inaynu yeelanno inaynu bal meel fog wax ka egnaa loo baahan yahay haddaynu meel dhow wax ka egno waa musiibo anigu waxaan aaminsanahay 100% waxaan aaminsanahay ninkan barnaamijka iyo hawsha uu wadaa in ay tahay hawl mashruuc ah uu lacagna ku soo qaatay taasaan aaminsanahay idina inaad ila aaminsantihiin in kala garan maaye waxaan aaminsanahay oo ku dhaaran karaa oo aan ku dhaaran karaa oo magac ilaahay aan ku mari karaa waxaan ku dhaaran karaa in hawshani ay tahay mashruuc uu ninkan lacag ku soo qaatay anigu markaan fiiriyey ninkan iyo qaabka u dhaqmayo marka aan fiiriyey anigu waxaan ninkan ka aaminay in uu yahay nin ummadda Soomaaliyeed loo soo diray oo balaayiin dollars la siiyey in uu yahay baan yacni madmadow ku jirin haddii maanta isagoo bilaa cudurdaar ah haddii uu maanta fiideo iska soo duubi lahaa uu durdaba barnaamijkii loo diray uu fulin lahaayo yacni khaniisnimada ahaa uusan cudurdaar ku dari lahayn ma og tahay inaku waynu ku tufi lahayn waynu xanaaqi lahayn waynu maagi lahayn laakiin kaarto culus buu inoo isticmaalay ninka kaarto culus buu inoo isticmaalay kaartadu inoo isticmaalay waxay tahay in uu inagu soo galay isagoo yacni sheeganaya arrimo cudurdaar ah isagoo sheeganaya waa la isoo faraxumeeyey kanaal isagoo inoo iskugu kan bihinayo is oohinaya yani hadda waa inaad caqli dheer yeelato ilaahay caqligan muxuu idiin siiyey war ilaahay caqligan muxuu idiin siiyey war lacallakum tatafakkaruun miyuusan ilaahay idinku oran caqliga waxaan idiin siiyey buu ilaahay leeyahay in aad wax ku garataan buu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay hadda arrintan u fiiriya ninkani
حقيقة وحا دبأ ننكني سببتها ويعني برامج كان أوضا إن أي تهي برامج كان عذودارات وشيغاني waa laysoo khaniisa hada barnaamijka aan sheegay waxa weyn waa laysoo khaniisa marka uu leeyahay oo uu leeyahay abtigay ba isoo khaniisay oo uu leeyahay sheekh ba isoo khaniisay oo uu leeyahay wasiirra isoo khaniisay oo uu leeyahay Soomaali ba isoo khaniistay oo uu leeyahay dariskii baan ka amaan hali waayay oo isoo khaniistay marka uu leeyahay marna isku keen oo hinayo oo uu leeyahay fiktan baan ahay oo uu leeyahay maxay tahay waa kanay Soomaali ba idishaa sidana la igalaay dulmanan ahay marka uu leeyahay waa mid systemyada kamid ah qaabka loo isticmaalo barnaamijkan loo galo hadii maanta uu ina soo gali lahaa isagoo si toos ah khaniisnimadii u wada hal la khaniisoobo Soomaaliya hal la khaniisoobo kan hal la yeelo khaniisnimadu way wacan tahay waa sidan haduu ina soo galay way xanaaq lahayn bin aadam baynu nahay muslimiin baynu way xanaaq lahayn laakiin muxuu sameeyay system barnaamijkiisa ugu hirgali karo ayuu muxuu sameeyay lacag ku soo qaatay oo ah in uu marka hore cududaar soo horeysiyo dadka inta badan heesaha baneeya ee axaadiista inkira barnaamijkooda waxay ku bilaabaan tafsiir buu marka hore ku bilaabaya tafsiirka markuu ku bilaabo tafsiir buu ku hoos gelinaya heesii waa banaayihin axaadiistani waa been يعني تفسير كيف بكوس قلنا يا إذا نكني برنامج سياسات بوتها وإن تفكرتان وإن تكهر تكتان يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي الجليل كه وحوقها صحابة دي وقع عجبت بنا أنت تاريخ الإسلام الحيو صحابة وحوقها صحابي غير لم أخن أحدا أبدا ولقي وحول قف ما خيامن أنا ولقي وحول قف ما خيامن إذن إنك وإن نقولنا ضد كأن الخيامين سيدو كلا وإن نقولنا ضد أن الخيامين قفك مشروع سوقاته الدين تينا ويركوه شرفتينا ويركوه الصومالي نمدينا ويركوه وإن أينو كسي عقل ديرينا أو أينو كنا وريا تو قوالو قبت بينالي خاين أنا كدرتين أنا سرتين ورنا ما سيري كرتانك وين أتراهضان لكن ضد بأرون أمالي أرنتي فيك تمكي وشيغانا هيد والي سو خنيسي يعني ضد بالرميستي حتى النظريات هدي لو يشو هذا الكيساس لأيغو هذا الكيساس كو سابسن والي سو خانيسي وبين وحن وحبك جرين ويا وبين عد ويا وبين عد سببت بين كو تاي دي شيغو سببت بين كو تاي وحا ويان ilmaha sideeda banaanba markuu leeyahay shanjir baa lagu khaniisay shanjir baa markuu leeyahay waa lagu khaniisay oo uu leeyahay dabada la iiga tagay ilaahay baan kugu dhaarshay shanjir akhlaaq xumo lagu sameeyay ilaahay baan kugu dhaarshay maqarin laha jawaabteedii kan idinka sugaya ilma yar oo shanjira maanta ilma yar adoo jidka maray ilma yar dhirbax bal ku soo dhufo isagoo ooyaya oo qaylinaya ayuu hooyadii u cararaya markaas uu dhahay hooyo jidka la igu soo dhirbaxay maanta hooyo jidka la igu soo dhirbaxay dhirbax waa sahlo laakiin waa la soo khaniisay anoo shanjir ah ilmahaas ilaahay baad ku dhaarshay ma qarin karo suuragal ma aha talabaad ilmaha yar ceel ma aha ilmaha ilaahay inta yar ugu tala galay ee duburka ah ee uu ka saxaroonaya ceel ma aha haddii ilma yar loo tagi lahaa oo shanjir ah maba noolaan lahayn aqlan wa sharcan maba noolaan lahayn haddii uu noolaadana daawac aanan qarsoomi lahayn baa gaari lahaa dhaawacee aanan qarsoomi lahayn baa gaari lahaa laa shaka dhaawacee aan qarsoomi lahayn baa gaari lahaa okay kaba soo qaad in hal mar la khaniisay oo hal mar khaniisnimo lagu sameeyay kaba soo qaad laakiinse khaniisnima la ila daba galay oo macmiil la iiga dhigay de taasi wax maskaxdeeda ka daadagaysa ma aha masaajidkii baa laygu khaniisay subxaanallah war masaajid adduunka ka ugu munaafaqsan hadduu masaajidka dhex fadhiyo wallaahi inuusan weligii u oranaynin wallaahi inuusan weligii qof u damaacinayn ka adduunka gudbi jirta hadduu joogo masaajidka anigu sheekadan waxaan ogaadaba inay been tahay markuu yiri masaajid baa laygu khaniisay baytullah tabliiq baa laygu khaniisay waa culimada ceebeen uu ceebeenayo waa culimada
aflagaadeen uu aflagaadeenayo waa culimada uu raba inuu sharafta ka dilo hadda wuxuu taagan yahay culimadii baaba ii tagtay buu leeyahay subxaan allah abtigu waa ka dadka ilmaha ugu jecel abtigu waa ka ilmaha dadka uguba jecelba abtigu waa yacni hooyada labaad waa hooyada labaad idan sidee bay suuragal u tahay abtigay baa khaniisay sidee bay suuragal u tahay sidee bay yacni maskaxdeena uga daadegaysaa walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaynu fakarno qalbigu hadduu ina fariisto maskaxdeena aysan shaqayn weydo fiidow daawo ay noqoto kaliya caqli ma aha okay waxaadba ka soo qaadaaba ninkan waaba la khaniisay say inooga daadegaysaa oo siday macquul u tahay waa laygu celceliyo waa layla dabagal khaniisnimadii wuxuu yidhi deriska haddaan u tago deriskii waa isoo khaniisaya masaajidkii haddaan galo masaajidka waa laygu soo khaniisaya gurigii haddaan tago waa laygu khaniisaya buu yidhi abtigii haddaan u tago caawiyo waa lay khaniisaya buu leeyahy maxaa lagugu arkay weeyaan meesha maxaa lagugu arkay weeyaan de maxaa lagugu arkay dhibta lagugu arkay waa maxay oo dadka lagaaga soocay waa maxay yacni taasayba been ku tahayba barnaamijku hadduu dhihi lahaa hal mar baa lay khaniisay waa wax laga rumaysan lahaa laakiin waa layla dabagalay dee gabadhanba xitaa lala dabagelin gabadh xitaa haddii la kufsado dee lalama dabagalaba gabdhaha ugu dhawo dee gabar miyaad aragteen le deriskii baa ay khaniisay oo masaajidkii baa ay khaniisay oo meel kale lagu khaniisay miyaad aragteen ilahay baa idinku dhaarshay wiil aan la hawaysanba warkiisa daaba way dhacdaa wiil inta laga qabto dhalinyar inta iskugu tagtagto ay yacni laba diblayso ay meel ku xirato ay ciqaabto way dhacdaa oo wax waa wax dhaca laakiin waa layla dabagalay dee waxaynu suuraysan karno walaalayaal ma aha maskaxdeena ka daadegayana ma aha okay qofka haddii la dhibaateeyo oo dhibaato ku dhacday oo yacni khaniisnimo loo geystay ilaahay baa idinku dhaarshaye hadday dhab tahay oo ay run tahay oo ay tahay wax ka jiraan ilaahay baa idinku dhaarshay ninkaas khaniis maska dhigi lahaa naas ma yeelan laha dharkii dumarka ma xiran laha kabase wuxuu yidhi waxaa igu kalifay khaniisnimadii yaraanteedii laygu soo sameeyey baa igu kaliftay maanta inaan gabarnimo iska dhigo yidhi okay kaba soo qaad maanta yaraantaadii ama malcaamad tusaale malcaamad baa dhigan jirtayba malcaamadiiba maalin walba ama qofka maalin walba iska ka garaaci jir maalin walba waa iska ka garaaci jir tusaale for example baa mixinaya maalin walba qofka iska ka garaaci jir fiilu kula dhici jir fiilu kula dhici jir fiilu kula dhici jir fiilu kula dhici jir ka waran hadhow markaad weynaato ama meel kale aad tagtay ama meeshii meel ka fog aad tagtay ka waran haddii uu qofkii yiraahdo fiila intuu fiila isla dhaco oo fiila isla dhaco oo war hebel maxaa fiila iskula dhacaysaa ma yaraanteeda baa laysoo fiilayn jirayo dee saas talaajigeed baa maanta nigu kaliftay inaan fiiladii sii wado idan marka nin lasoo khaniisay dee maanta inuu soomaali rag oo dhan naco oo guur oo dhan oo naco oo balaaye farji dhan oo naco mooyaane ma jacayl buu kasii qaadi lahaa ninkan yacni hadalkiis waxay noola eeg tahay nin leh jacayl baan kasii qaaday gabarnimadii gabar buu iska dhigayba waa kan naasii yeeshay waa kan farjigii yeeshay dumarka waa kan yacsaa u socdo dhaqmay anigu waxaan aaminsanahay inay hawshan tahay hawshan inay tahay baan aaminsanahay hawl mashruuca oo ninkan balaayiin dollaris ku soo qaatay balaayiin dollaris in uu ku soo qaatay waxaana taa u daliil ah ninkan kale ee hadda ka hor soo baxay blue make up la yiraahdo ninkan kale blue make up la yiraahdo ee hadda ka hor soo baxay ee hadda ka hor aynu la yaabanay isaguuba ka sahlanaaye maxaa xiriirka ka dhaxeeya waa maxay xalay toolo life isku meel ka soo wada galeene Soomaha Soomaali Finland khaniis Soomaha maxaa blue make up isaga ka dhaxeeya isku guri maxaa geeyay maxaa isbaray Soomaha Soomaali lacag soo qaadatay Soomaha balaayiin lacag ku soo qaatay Soomaha maxaa xiriirka ka dhaxeeya waa maxay war aqli yeesho ninkan waa laga dambeeyaa gaala inagu soo fangareysay war aqli yeesha in diinteena iyo dhalinyarteena lagu burburiyaa la rabaa inta hadhayna ay soo raacdo nin lacag soo qaatay weeye waa nin jeebka loo soo buuxiyey bari ka maalin markuu lacagtiisaas ka taajiro hadafkiisana uu gaaro wuu awoodaa inuu dee naasahana dibciyo intuu dibciyo dee ninkiisa caadiga iskaga soo noqdo ilaa lacagtiisa maanta business baa adduun galay maanta adduunkii business buu noqday la socdo maanta adduunkii business buu noqday
هو أودا بريكة مال أنتو الناسان دبعيو أو عادي كدقو نين عادي يسكدقو خلاص لعقتي بلايين دولار هدف كيس مركو قارو لأن يكر أصوح عليو إلى مهمتس وحاويان لأن يرو عيال ربا إلا فسهاديو أو يعني لغدقو يعني قيما أو صومالي اللي يراه صومالي صدح بيهو قيب سنتها دمر رق iyo khaniisiin ninna maaha naagna maaha warkuu cad yahay dayax soo baxayna sacaba laguma qarin karo ee waxa loo baahan yahay in aynu ka digtoonaano in laga report gareeyo meesha uu live-ka ka soo galay in laga report gareeyo in gacan la iskaga qabto in ninka gacan la iskaga qabto waa nin mashruuc soo qaatay waa nin lacag soo qaatay waa nin jeebaha loo soo buuxiyay waa nin loo soo diray Soomaaliya inuu fasahaadiyo dhalinyarta inuu fasahaadiyo inuu diinta ka jeediyo inuu gaalaysiiyo qofkaasina la shaka qof muslimiin ma qabiiladii buu ceebanaya oo dad muslimiin oo ceebanaya oo dad sharaf leh buu ceebanaya oo dad masab leh buu ceebanaya oo dad abtiyaashi buu ceebanaya oo waalidkii buu ceebanaya oo ummadii Soomaaliyeed buu ceebanaya oo diintii buu meel uga dhacay oo culimadii ka amaan heleen aynu ku baraarugsanaana loo baahan ninkaas wax fitantan loo dul qaadan karana ma aha culimadaana hawshoodii gabtay anigu waa sida aan aaminsanahay culimada mushkil isaga ma aha mushkil isaga khaladku ma aha culimadii baa hawshoodii gabtay ma maqli jirteen qof hawshiisii gabay culimadii baa hawshiisii gabtay bulshoy fariinta aan maanta idin diray waxay tahay isagu khaladka malaha buluuk make up khaladka malaha ninkan khaladka malaha gaalo dhan khaladka malaha ee waajibku waxa weeye culimadii baa hawl gabtay aawe culimadii maanta haddii wadaad uu soo boodo wadaag anuma culimada for example tusaale idin siya maanta culimada haddii maanta wadaad soo boodo wadaad leh maanta sawirku waa mamnuuc waa xaaraan hadduu wadaad leh hadduu soo baxo sawirku waa xaaraan walaalayaal sawirka iska daaya sawirku ma banaana wadaad ah hadduu maanta soo baxo anigu wallahi waxaan ku dhaaranaya culimada Soomaaliyeed oo dhan inay kici lahayd oo dhiiray ninkaasi waa dambaabay masaladii aqwaasha culimadu waa sidaas way banaayay sawirku Soomaaliya laydin inay ka hadli lahayd ninkaasi wadaadka ah eg masalada sawirku masala fiqiya qofkii doonaa diidi kar qofkii doonaa uu ogolaan karaa qof xaq ugu maray inaad ku qabsato markaasna waan ka hadlayaa marakana waan aamusayaa isma laha adeer gacali culimada hawshoodii gabtay culimada fariintan u diray waxa weeyaan war culimo ilaahay ka cabsada war hawshiini waad gabteen war social media waad joogtaan ama iskaga dareera ama social media wax ka qabta war ka hadla war maalinta wax yar basiida uu soo boodaan ha ka hadline warda ka hadla aawo culimadii warda aawo culimay hadla si toosad ii daawanaysaane waa maxay waxa idin aamusiyay yaa afka idin qabtay miyaa la idin sixray xagee mushkiladu ka taagantahay ميوسن رسولك عليه الصلاة والسلام أوران العلماء ورثة الأنبياء ودحلكي أنبياء وحكى لنا كما يسن دحلنا ورثوا العلم والدين والرسالة وحكى دحلنا تبليغ الدين إن الدين ده تلك جارسية أفر شيخ كلية كفلنا أفر شيخ أو علماء الصوماليات كم إذا حدي كهل لهاين والله أرنتها سميسن شري لهن بس ويسكت بابي لهن إستغنى مشروع عيساسي وكقرم لها إستغنى فاتحة إن أمر لهن إنه إلهي هديه وقف مسلنا دي ظاهر الحكم من الحكمين إنكم ظاهر الحكم من الحكمين قف وقف مسلنا أفكينا كده كرمين قالوا إنكاس وقف لمي وقف مسلم لكن لمي بري كمان هذا كورن وانت المان قف كاس بري كمان إلهي وهانوني كره إستغنى دعاء أبرينا لكن سي علموي محا إذن آوي علمادي إذن آوي ورمان انت محيوتي وحي رب لا مالا يعني يجران بواد هذا شانه وان وح لغا سو قادا اجرينه دارنتن كهل خنيسني ما هشاكد مريس ما انت اني يعني مارتي يعني نكن وحو ليه يغورسده حد كد وحبا دعس ان هبليه ان لا غورسنبا رغي اسغورسدا وا سدا غالادو heerka gaadhay weeya oo dumarkii ay isguursadaan masalatu sixaaq baa la yiraahdaa
ومسألة رجعنا رجعنا وتجان دمرك وتجان دينتو هيرك أي دكتي قفك خنيس كحكم كيس دينتو هيرك أي دكتي يهيرك أي نولد قن وفرق بقول حية دينتو حقيقة بتاع قفك خنيس لجو أرك أما خنيس نما لجو أرك إن دبق دير دبق الصوماء دبق أدونك وجود دير أنت اللي جيو إن لقصة توره أي دينتو قبتها دينتو حقيقة بتاع علماء أفرق قول بمسألة كتيرة علماء قفك عادي هلودلو يو علماء الدبق أدوك وجود دير قفك خنيس نما اللي يمات الدبق أدوك وجود دير هلا صار هنا لقصة توره علماء كلا أي شرط أوله هل لجوب في الحياة قفك هل لجوب قفك خنيس نما اللي يمات في الحياة هل لجوب علماء قارب قبتها ومع علماء هراك بدها علماء قارب وحلين ما يصير عادي هل والله دقم دينتو هيركا سيقبتها أرنت بلا إنه فيرسنا إنه دخ كوينه كا حالة ضدك كوا قاربا ولا لو واقحنا هاي فكتن كاكو جاري ولا لو نولو هل كود هل كجاحي وحيكم ما جاي يجا إلى هاي الحساب طمية ضدك قاربا وعمريه ضدك يعني ما ركتي يعني ضدك أيو حقيقة محيطي يعني ضدك بوعمريه ور إذن كل لايف كينا كداي داوش إذن كداي ور هدي أين داون وأين يعني نكن إسكدافن محينا هليا ور محاد كفالس داوش ديس إسكدافا إلهي درتي أينو إسكدافن إنك أين داون ور إلهي درتي أينو إسكدافن إنك أين داون فيرسنو إنتي نامشة كشرتا هدي أد إيه بلان قادان إن أيضا نك داون وبس كبابا أيه برنامج كيساس وبس كبابا أيه حقيقة لا شك لبا أرين بكسو جبينية من علماء كسو عضها من أرنتا تكوبات أنكو هريو نكن مشروع أن عاديهم بسوقات رجع صوماليين إن أي جين ما نقدام بالرباح خنيسين إن أي نقدام بالرباح عرورتي إن دبض اللغة تقال الرباح رجع صومال إنسان لجو أبابيه أيال الرباح لبو ورباقي قلبات وحاوي علماء كسو عضها ور علماء كهلا ور علماء هاموسينا ور آوي الشيخ محمود الشبلي ور آوي الشيخ محمد عبد أمر ور آوي علماء كان الشيخ محمد إدريس آوي الشيخ محمد إدريس وحو كم دي هاي شخصيات كسوشيال ميديا واستعمال كبضن ما حد وجه اللي لا أرنتكم مسوا قارن مياه حل كام صارنا مياه ما حد شرا نبتو حاجة كدعم وريارهن ورد أدونك هلاكسن قيامه بسود وهذا والله قيامه بسود وهذا قيامه وحو دعيا يعني من علامات القيامة أي كمته أدونك دتك وناكسنا وكوير هذا دتك وناكسنا ودن إلهي ووضع أفسد دتك وناكسنا ودن إلهي وأفسد أدونك إنجر موجان وح اسكوسو هذا أنت حماد بس كوسو هذا أنت حماد بس كوسو هذا وحيالها قارن المراقبية باكر وحيالها قارن إيجي باكر وحكم ذا حتى الدعوة السوشيال ميديا وكيرته دعوة صادق ما أنت هوم بارتي مركز فيسبوك بارس والله بالله هل حديثك حسوسين والله ذا نواركن سبحان الله والله نادر نواركن قف هل حديثك حسوسين والله ذا نواركن هو نادر هبينك جمعة أو كل واجه هراء اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد قفل بعوديه شري رسولك كسلي جمعياش بلاضوء جمعيا هبين هذا جمعياش ويجن أين كتشنا بلاضوء والله أركم يسوق قف حتى نهاية وجمع صلي رسولك ولا عليه إنه دريري والله ذا نوارك يعني وحي كم تهاي إن أدونك دم هذي إن أدونك ضدك أهل خبائث وسكوا السهرين سيدان أدونك اللجوها لاجيو إن قرحض هلك كسب بحضه قرحض إني هلك كسب بحضه هلك أودع شرتين هلك أي أودع شرتين كسب بحضه أيا هرسن دول كان الله لابو مسيح الدجال نسود دجا هرسن ضدك قهر حدر وإلى قيران إنسان لكن لبع عشك بعدي قيرة سويد كبحس سيدين هرات كلها من إنسان ورا قفل بحضو بوستي سوقر قفل بعاو حيب بلنقادو قفل بإنه عاو قرار سوقر ودهايو نينكاس هلا اسك قبطو نينكا ظالم كهلا اسك قبطو نينكا ظالم كهلا قسو ودو هرجيستو قفل بعاو يعني عدسي دا سند كعصانية جبر يويلبه بوستي جيدا هكو سوقرتو نينكاس إلهي هكا عبصدو نينكاس خنيسك دادو كدقتون هذا قف والبا قرال او كغا هادلا إلهي بايدا كل هرجي انت اللايف كأودانا اللايف كا سوقشو إن شاء الله تعالى نكاس أينو مير سارنو أينو جيل سارنو أينو إسكا قبنو إنكا سومالي وحنا سمين كرنا وحنا كيني كرنا
qof walba caawa ii ballanqaad inuu qof walba qoraalkii kaga hadlo oo uu yiraahdo ninka hal la iska qabto ninkaas hal la iska qabto ninkaas hal la iska qabto ninka hal la iska qabto ka digtoonaada wardada mashruuc buu soo qaatay wa in caawa qof walba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu ka baryaynaa in uusan ninkaa inoo qaban inuu ilaahay ninkaa inoo qaban baynu ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahay sabab inuu ninkaa sababtiis ilaahay inuusan inagu halaagin ilaahay baynu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala ninkaa khaa'inka ilaahu waad u jeedaa waxaanu raalli uga nahay ma aha kallaa wallaahi waxaanu raalli ilaah uga nahay ma aha ilaahu qalbigaanu ka nacabnahay ilaahu ninkaa hanoo halaagin darti ilaahu ninkaas dullaysan ee adduunkii aad ku dullaysay ilaahu ninkaas adaaba dulleeya hanoo halaagin ilaahu daraaddi hanoo halaagin ilaahu daraaddi hanoo halaagin ilaahu daraaddi hanoo halaagin ilaahayow waanu ku caasinay ilaahu waan ku caasinay oo ilaahayow maanta macsiyadeedu ma yara inta ilaahay u noqonaysaa yaraatay waxaa laga yaabay qofku inuu yiraahdo 5 bilood ka hor ba quraan akhris igu dambeysay waxaa laga yaabay qofkan har iyo habeen dunuubta galaya waxaa laga yaabay inuu yiraahdo rabadaantii baan hal maarin ilaahu yacafi subhanallah dadka salaada tukada maanta waa yari yaani xarigi ilaahay baa la wada jaray xarigi ilaahay baa la wada jaray inta salaada tukata waa yarta maxaa harsan rukniga labaad waa salaada iqaami salaah rukniga labaad in salaada la oogo rukniga koobaad baa harsan in laga tago oo shahaadateynki aha shahaadatu la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah kaas baa harsan in laga baxo sidaana gaalnimo lagu noqdo qof la kufsaday waa yaryahay way dhacdaa qof la kufsada laakiin dhulka Soomaaliyeed waa ku yaryahay Soomaaliya waa dad sharaf leh dad akhlaaq xumadu ku yartahay weeye dad akhlaaq xumadu ku yartahay weeye yaan la idin ka dhaadhicin qof Soomaaliya jooga la kufsaday yaan la idin ka dhaadhicin way jirtaa laakiin waa yarta ninkan mashruuc buu wataay intaasan hadalka ku soo gabagabeynaya wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ilahi subhanahu wa ta'ala waxaynu ka bareynaa inuu tawfiiqdeena waafajiyo wixii cadow inagu ah Soomaali hadaynu nahay ilaahay waxaynu ka baryeynaa inuu inaga qabto fariinteeda ugu dambaysa culumay ha ka aamusina caawa canaanta ugu badan idinkan idin saaraya culumay idinka hawshiini gabay dadku maanta inay heerka ku dambeeyaan idinka number 1 ka ah number 1 culumada ka ah in dadku maanta heerka ku dambeeyaan yaani culumada u sabab ah war culumay ama iska casila xilka daacinimo ama say tahay ama u guta maanta ka inoo talinaya waa caam midaan waxba garanayn weeyaa ka inoo hogaaminaya waa kii dadka ugu fasahaadsanaa ka qoraalada siyaasadda ka hadlaya waa kii ugu fasahaadsanaa ka live ka ku jira waa kii ugu fasahaadsanaa war aaway culumadii wata iga yaabinaysa aniga ilaa ya hadeer aqligaygan yarina uu aad iyo aad aan uga fakaraya aaway culumadii baan leeyahay aaway Facebook way ka buuxaanay chat fareenkayga haddaan idiin soo bandhigo culumadii baa ka buuxdee war aaway arrintan yacni macquul ma ahee aaway culumadii wata iga yaabinayso aan haddar ilaa dhankaya dhabarkay dhafoonka aan isku haysto war culumadii aaway man taaganahay ilaa haddar meel iigu sheega culumadii maxaa ku dhacay meel iigu sheega miyay gaboobeen oo miyay yacni maaragtay macajis baa dacwadii ka gashay ma garan karo waxaan ku hadlo garan maayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu